dhowaan dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya waxaa lagu xiray saraakiil ka tirsan ururka ONLF oo ka mid yahay Mohamed Ismail oo magaalada Sydney deganaa ahna shakhsi Australiana. sababaha loo xiray saraakiishaas iyo guud ahaan waxa ka socda dalka Itoobiya iyo gaar ahaan gobolka Soomaalida ee Itoobiya ayaa waxaan ka wareystay Mohamed Ismail oo ururka ONLF waqti dheer ku soo jiray madaxna ka soo noqday. waxa uu khadka telefoonka ee magaalada Sydney ugu waramay waxaana weydiiyay bal marka hore xariga saraakiishaas waxa uu kala socdo ama uu ka maqlay iyo sababaha keenay. bismillaahir rahmaanir rahiim walaal waxa weeyaan dalku waa dal gumaysi ku jira waxa weeyaan hadda saraakiishaas la xidhay way ugu dambeeyeen sababta loo xidhay iyo inaan markaa laga hadla mooyaane intii ka horeysayna waa la xidhi jiray. dalku waxa weeyaan waa xabaalo dhowr boqol oo kun xabaalahood weeye oo lagu dilay. xabisku iska caadi buu iska ahaa welina yahay. marka xabiskoodan waa xabis dulmigii iyo dulligii shacabka haystay kamida weeyaan. mana aha wax yani argagax ma aha wax lala yaabo oo yani lagu argagaxo la yiraahdo ama lala yaabo la yiraahdo maxaa loo xidhay ma aha. waa iska caadi in dadka la xidho isagoon waxba galabsanin. waa iska caadi in dadka la dilo iyagoon waxba galabsanin. marka tii unbay tadna ka mid tahay. waa gartay marka saraakiishaas waxaa ka mid ahaa Mohamed Ismail oo si gaar ah isugu dhaweydeen reer Sydneyna ahaa. maxaad ka maqashay sababaha loo xiray ma ka soo warqabtaa xaaladiisa iyo halka uu ku sugan yahay? sababaha loo xidhay waxa weeyaan magaalada qabridahar oo Mohamed joogay iyo ragga kale ee lala xidhay iyo dhalinyaro kale oo waa la xidhay leeyahay aanase weli ma aragtay ilaa dhowr kale oo dhalinyaro ah lagu daro la xidhay baa la leeyahay. waxa weeyaan magaalada qabridahar bishan 18keedii waxay ka sameeyeen banaanbax isu soo bax weyn oo shacabku aad isugu soo baxay. calankii jabhadana la lulahayay. marka banaanbaxaas loo soo baxay ayaa maad aragtay yaa wuxuu muujiyey yani nooc sidii dhowlatusada buu ahaa. dadku siduu u rabo gobonnimo iyo xorriyad siday u rabaan iyo dareenkooda. marka haddii cadowgii dalka haystay kuma farxin waase laakiin cidun in dhalada loo saaro. marka dee raggaasoo ka mid ahaa abaabulayaashii ee dadkii soo kiciyey ee magaalada soo kiciyey ahaa ayaa la xidhxidhay. waxaa loo xirxiray isu soo baxaas ay ma sharci darro ahaa ma dowladdu ma isu soo baxay diidanayd maxaa loogu xiray isu soo bax? waxa weeyaan wax aan xagga Itoobiya sharciaba ma jiro. yani qofku noloshiisa uu nool yahay sharci darro weeye. marka waxa weeyaan iyadoo Itoobiya wax kasta waa u sharci darro xataa haddii aad gurigaaga adoo jiifaa sharci darradu ku qabanaysaa. marka wax sharci oo jabiyeen oon ahayn dadkaasu inuu isu soo baxo oo ay dareenkooda muujiyaan. marka shacabka dareenkiisu inkastoo la leeyahay nabad baan qaadano waa nabad oo dadkii waa nabad la leeyahay laakiin cadowga nabadu ma aha. wax kale ay muujinaysaa wax kale ina salka ku soo haysaa. waxa weeyaan saad la socotay Itoobiya kacdoon ka socda oo dadkii Itoobiyaanka asalka ahaa ay kacdoon oo Addis Ababa ka socdaa oo gobolada oo dhan qowmiyadihii oo dhan baa kacay. marka tan waxaan u arkayaa ka hortag inaan kacdoon noocaas oo kaleeta ah una dhicin. kacdoonka ogaadeeyana la mid maaha kacdoonada dadka kale. kacdoonka ogaadeeya waa kacdoon gobonnimo doona laakiin kacdoomada dadka kale oo wuxuu ku dambayn un maad aragtay gobonnimo doon iyo xorriyad baan rabnaa laakiin qolyaha kale xuquuq bay doonayaan. sidaa daraadeed iyaga waa la afjugaynayaa. markaaba waa in laga hortago. waa gartay Mohamed Ismail Mohamed Ismail halka uu ku xiran yahay in reerkiisu ka warqabaan iyo arrimahaas ma ka warqabtaa haddaad ama reerka la xiriirtay ama dalkii la xiriirtay? waa siday soo gaadhaysa markii dee qabridahar gurigiisa laga qabtay. marka ma aha inuusan reerkiisa ogeyn. habeenkii iyo maalintii ugu horreysayna reerkooda kulligood ku qolyaha xidhan raashin baa loogu geeyey meesha. waa loo ogolaaday baa layidhi raashinkaa leanna waa dadan dembi lahayn oo waa gardaraaba lagu haystaa. marka markii hore saasay u dhacday kadibna waa la qaaday oo jigjigaa la geeyey sida hadda wararku nagu soo gaadhayaan ee xaqiiqada ah.
ONLF 2 sano ka hor bay heshiis la qaadatay dowladda Itoobiya oo Casmara lagu qabtay 2 sano u dambeysayna saraakiishaas Maxamed ay ku jira iyo dad badan wadankii bay joogeen xorriyad buuxda haysteen miyaan la dhihi karin arrintaanu kama turjumayso 2 sano waxa dhacay wax xaqiiqda hadda meesha ka jirta wixii dhacay qudhiisa faygaha waxa weeyaan Itoobiya waxa heshiis loola galay ma jireen waxay yani sida muuqata iyadu cafisun bay bixisay walow qolyahan xarooday ay leeyihiin heshiis baan la galado heshiiska nagi baa la jabiyay ay leeyihiin hasa ahaatee waxa weeye aan waxa nabad si xorriyad oo wadanka ninku haddaan cadowga ku dilin xor baa tahay ma aha xorriyadu waxa la yiraahdaa markaad adigu tashanayso ee tallaabadaada aad xor u tahay waxaad qabanayso waa midan hadda banaanbaxa ay banaanbixi kareen hadday banaanbaxaanna la xidhayo marka ma oran karayno heshiis bay jabisay waxa weeye iyadu siday doonaysay inaan tallaababa la qaadin weeye tallaabo hadii la qaaday oo cadawga u soo xarootood u timid maadiga wax jabiyay oo cadawga wixii la isku ogaa jabiyay mise cadawga jabiyay su'aal weeye halka ka taagan laakiin waxaan u malaynayaa Itoobiya ogaadeen weligeed nabadgelyo mayna dadku kama helin dadku shacabku kama helin tii un bay tan ka mid tahay adigu marka Mohamed Ismail oo heshiiskaas 2 sano ka hor ka dhacay magaalada Casmara raali kama ahayn qaybna kama ahayn saas aan u fahmay waxa weeyaan aniga iyo rag masuuliyiin oo kale waa diidnay waa diidnay laana waxa weeyaan wixii annaga iyo kuwii naga horeeyay baan u soo dagaalamaynay oo dagaalka ONLF 36 jir guursaday 36 guuradii gaadhay iyo dagaaladii ka horeeyay looma dagaalamaynin in ogaadeen oo Itoobiya haysato inaanu nabad ku joogno oo iska fadhino looma halgamaynin marka waxa weeyaan wixii loo halgamayay mar hadii aan la helin sababtaasaan maadartay uga istaagnay runtiina tii un baa cadaanaysa inuu dalku gumaysi ku jiro dad gumaysi ku jirana waa la oran karayaa saaka xabadu ma dhicin ama cid lama xidhin laakiin wax rasmi ah marnaba ka suuroobi karaya ma jiro dad la gumaysanayana marnaba nabadgelyo iyo kama suuroobaysa haddaadan adigu dagaalamin wiilkaaga dagaalami sidii awowyada iyo abayowga nagaba ay u dagaalamayeen marka waa arintaas waxay xaqiijinaysaa dareenka nagi ahaa cadawga maad aragtay inaan la isu dhiibin haddaad isu dhiibtana adun baa maad aragtay xaggaaga uu nabad ka helay isaga adigu xaggiisa nabad kamaad helin waa gartay eedaadu inta badan waxaad moodaa inay ku socoto Itoobiyada weyn ee federaalka laakiin deegaanka Soomaalida dawlad bay leedahay cagjar uu madax ka yahay hadda ciidamada dadka soo xiray waa ciidamadii liyu police marka waxaad leedahay lug toos oo federaalku ku leeyahay iyaga amarka bixiyay saraakiishan lagu xiray meeysan noqon karin khilaaf u dhaxeeya maamulka meesha ka jiro oo deegaanka Soomaalida iyo saraakiisha ama ONLF gudahan maamulku wuxuu wakiil ka yahay dawladda Itoobiya waa gumaysatada ayuu wakiil ka yahay wuxuuna wakiil uga yahay inuu siyaasadda gumaysiga ka fuliyo wadanka ogaadeenaya haddaba ma aragtay wax isagu u madax bannaan oo waxaan siyaasadda Itoobiya ka soo horjeeda iyo masuuliyinta Itoobiya waxay doonayaan ay samayn karayaan ma jiro in yarna hatta ma aragtay wax yar hatta canaanan karayaan qof aan Itoobiyadu raali ka ahayn marka waxa weeye sideedabana waa hadduu dadku dambi galo asee dambiga kii isaga maamulayada ka qaban lahaa uusan ka qabanin raali buu ka yahay markay ugu yartahay hadduusan xataa marka hore ogeyn haddii kalena wuxuu ku dabaqayaa xeerka Itoobiya iyo siyaasadda Itoobiya ee ku salaysan dalka ogaadeenaya shacabkana ayna danba ka lahayn laana siyaasadda Itoobiya shacab dan kama laha shacabka way dili way xili way qixin 3 milyan oo shacabka ayaa dalka dibadiisa ka jooga oo qaxooti ah oo laga soo qixiyay markii ay la gumaaday gumaadkii marka waxa weeyaan siyaasaddaas ay halkaas maamulkaas oo Itoobiya wakiil u yahay waa maamul Itoobiya kamida waa gartay laakiin Mohamed Ismail oo soo ma qiraysid Itoobiyadii 3 sano ama 4 sano ka hor ama xilligii abi ka hor jirtay ama cagjar ka hor jirtay iyo midaanu isku mid maaha meeshaad rabtay yay gaarin oo de Soomaalidu iyo xorriyad haysan aysan xor noqon dal xor aysan noqon laakiin lama dhihi lama simi karo kuwii hore u jiray oo Melasanaawi iyo dawladihii kale arrintaas miyadan qirayn waxa weeyaan Melasanaawi iyo kuwii ka horeeyay iyaguba bilowgii mayna xumayn bilowgii waa kuwa sameeyay baarlamaanadan iyo kaliilkan iyo madaxweynahan iyo
inuu dadku luuqadooda isku maamulo iyo waxaan dastuurkan aaya ka talintu meel kaga qoran tahay iyo bilowga mid walba maaragtay markuu dadka dejinayo ee uu xididaysanayo mid walba wuu wanaagsan yahay laakiin waxa weeyaan annagu systemka gumaysigaan la dagaalamayna hadduu mid salay fiicnaa oo mid xun ka dambeeyey oo mid fiican ka dambeeyey wax baamaana qaadi karaya oo garantii ku siin karaya ka dambeeyayo inuusan kii hadda xumaa kaba sii xumaan doonin laanna waxa weeyaan system baan la dagaalamaynaa maamul markaa jira ama Addis Ababa ka jiro ama jigjigaha ka jiro lama dagaalamayn laakiin waxaan la dagaalamaynaa system sidiisaba midka keenay kii ina dilahayay iyo kuwii waxaynayay kii systemka keenay hadduu systemku jirin gumaadkii shacabka la gumaadayay muuna dhaceen sideedaba ma ogtahay sida hadda ay guud ahaan xaaladda Itoobiya u socoto markaa fiirisid maxaad is leedahay way ku dambeyn doontaa maxaad si jeclaan lahayd adiga hadda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya inuu noqdo Itoobiya waxay maraysaa xaalad adduunka kaleeto iyo dawladaha waaweyn ee muxuu ahaa caalamka ee xoogga badnaa aynan u adkaysteen bay maraysaa laakiin Itoobiya waxay ugu adkaysanaysaa xaaladan ay marayso iyo miday 20 sano ka horba soo bilaabatay waxay ugu adkaysanaysaa mar hadduu maamulku sidaa u dhaga adag iyo hoosan shacabka dan ka lahayn hadday laynayso hadduu dhimanayo hadduu dareenkiisa muujiyo hadduu dhaqaaluhu hoos u dhacayna dan ka lahayn caalamkan reer galbeedkuna gardarradaas ay ku garab ku og yihiin oo dhaqaalaheedana ku kabayaan daymanka ka caafiyayaan dilka ay dilayaanna ay ku taageerayaan bal ka soo horjeedaanba marka weligeedii Alle su'aal baa saaran inay burburiyeen kale laana weligeedba de Itoobiya wax ay dadku markii horeba saanba hawuna kici jirin mooyaane hadda laakiin waxay kaga gadisan tahay shacabkii aamusnaayay hundudayay ee saa u foorarayay uu toosay wuu hadlayaa waxna actionna wuu qaadayaa taayana fal buu samaynayaa taas baa maadartay su'aashu u sii weynaanaysaa aad moodaa dalalka reer galbeedkuna inayna wax ka qaban karaynin ilaa hadday xadkaas sii gaadho marka arrimaha weeye su'aasha dhinaceeda kale ee xaggeena deegaanka Soomaalidu waxa weeyaan ragidaa wuxuu idaa kugu daayo wuxuu kugu daayo tusaa hadaad xuquuq helaysa xataa maxaa jira maamul goboleedyadan haddaad arkaysid dagaaladii baa keenay marka adiga haddaad xataa xuquuq doonayso bilaash laguma siinayo iyo naxdin kaasina wuxuu ahaa Mohamed Ismail oo khadka telefoonka ee magaalada Sydney iyo waramayay ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast Google Podcast Spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho